بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داود الكسود وهذا برنامج حساب بدنا لا ترتك على بوركا جناسك شعبها هذلك اللي بدأ كون يلا بي لباتن رمضان كريم waxaan si diiran soo dhaweynaya dhamaanba ka qayb qaatayaasha barnaamijkan inta daawanaysa inta kale warbaahinta kala socota iyo guud ahaan bacid kasta oo gacan ka geysatay barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku tartamayaan dhamaanba jaamacadaha kala duwan ee dalka in badan oo kamid ah iyadoo lagu tartamayo in ka badan dhowr iyo 20 mashruuc barnaamijka ayaan gudagali doonaa waxaan jecelahay xubnaha guddiga inaad ila soo dhaweysaan waxaan u yeedhi doonaa madaxa barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga jaamacadaha dalka Professor Mubarak Ibrahim R waxaan u yeedhi doonaa xubnaha guddiga waxaan ugu horeysiin doonaa Ismaaciil Aadan Meecaad waxaa kaloo u yeedhi doonaa Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale mayti waxaan u yeedhi doonaa xubinta guddiga ugu dambaysa Cabdi Yuusuf R waa kuma Cabdi Yuusuf R Cabdi Yuusuf R waa ganacsade waxa uu 15 sano ee u dambeeyay ahaa maamulaha guud ee shirkadda caanka ah ee Sagaljad waxa uu hore uga soo shaqeeyay shirkaddii Bitag oo uu ahaa madaxa suuqgeynta iyo iibka shirkadda MSG Trading Company oo uu iyadana ahaa madaxa iibka waxa uu Cabdi digriga koowaad ku qaatay maamulka iyo ganacsiga waxaanu hadda wadaa digrigii labaad waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada heerka labaad ee masters ka qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia waxaanu ku takhasusay arrimaha maamulka iyo ganacsiga waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda PSI oo uu maamulayay mashaariic kala duwan sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay hay'adda Africa Education Trust iyo Handicap International Cabdiraxmaan waa asaasaha iyo gudoomiyaha shirkadda Hasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhammaan geeska Afrika isla markaana xarumo ku leh magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ismaaciil Meecaad Ismaaciil Meecaad wuxuu shahaadada heerka labaad ee masterta ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London Ismaaciil waxa uu ka mid yahay maamulka sare ee shirkadda Meecaad Group waana asaasaha xarunta tababarka iyo shaqaabuurka dhalinyarada ee loo yaqaano Borama Job Center taas oo kumanaan dhalinyaro ahi xirfado iyo carbis shaqaba kaga faa'iideysteen Ismaaciil Meecaad waa aqoon-yahan ganacsato ah oo aqoon iyo khibrad durugsanba u leh maamulka hogaaminta iyo hal-abuurka waa kuma Mubarak Ibrahim R Mubarak Ibrahim R waa hal-abuuraha iyo madaxa barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga waana gudoomiyaha jaamacadda Badar waxaan gudagali doonaa barnaamijkeena xisaab badan leh tartanka hal-abuurka ganacsiga ee jaamacadaha dalka barnaamijkan oo maraya meelihii ugu xisaab badnaa waxaan u yeedhi doonaa kooxda u horeysa ee habeenkan caawa tartanka ka qayb geli doonta waa koox ka socota jaamacadda Rift Valley oo ku tartamaysa barnaamijka la yiraahdo Hasa Poultry Farm waxaan jecelahay ardayda ku socota jaamacadda Rift Valley ee mashruucaasi oo tahay halkan yimaadaan waad soo dhaweynaya ardayda ka socota jaamacadda Rift Valley waxaad taagantihiin wareegii afraad baad ka qayb galaysaan waxaad la tartami doonaa 4 group oo kale afartaasi group waxaan rajaynayaa inaad ka soo dhax bixi doontaan waxaan dhamaantiin idin rajaynayaa inaad guuleysataan halka waxaad ku haysan magacaaga saddexaad أنا علي موسى ana iyaa kula socda سكرية حرير كاين ana iyo sakariya waxaad idin rajaynayaa inaad guuleysataan marka horeysa 3 daqiiqad halkan ku haysataan waxaad soo bandhigi doontaan mashruucaad ku tartamaysaan Hasa Poultry Farm kadibna xubnaha guddigan qiimadeedii weydiin doonaa intaa wixii ka dambeeyay waxaad u gudbi doontaa wareegyadii kale waxaan jecelahay ku soo dhaweey mikrofoonka السلام عليكم آدم دين سلام دمان حبناها كان عسته شرفت بدن لي ardaydi magacaygu waa Hana Cali Muuse waxaan ka socdaa jaamacadda Rift Valley project-kayga ama business-kayga caawa ay difaacan doona ama aan soo bandhigi doona waxa weeyaan Hasa Poultry Farm marka aanu eegnay gaabo badan oo jira waxaanu halkan go'aan ku gaarnay inaan project-kayga ka dhigno inaanu digaaga u isticmaalno inaan maxay ahayd tolay beedkii iyo sidoo kale hilibkiiba ka soo saarno beedka iyagoo jiraan company badan oo businessyo badan oo jira anagu waxaan different kaga nahay ama kaga duwan nahay gadaal baan ka sheegi doonaa sidoo kale hilibkan anagu soo saari doonaa sababtan hilibka oo dooran waxa weeyaan hilibka badanka wuxuu nooga yimaadaa dibadaha dibaduhu inooga yimaadaa marka waxaan sameynaynaa
inaan bootrigii sidoo kale eggii iyo miidkii soo saarno annaga oo raaci doona habab kala duwan aad baad u mahadsan tahay waxaan kugu hambalyeynaa inaad si fiican usoo koobtay barnaamijkaagii 3 minute aad ka yaraysay weliba waxaan eegi doonaa xubnaha guddiga bal barnaamijkaas soo bandhigayso ee ah digaagii inaad beedkiisii iyo hilibkiisii baad wax soo saar ka samaysaan bal dhibaha horeeya ku bixiyaan ismaaciil aadan meecaad waxaan jeclay bal kooxda ka socotaa Rift Valley ku tartamaysa mashruuca Hasa Poultry Farm maxaa kaaga baxay ma qiimayntii horeeyay mashruucaasi soo soo bandhigay maxaad siisay بسم الله الرحمن الرحيم marka hore teamka jaamacadda ka socda aad baan u soo dhaweynayaa nasiib wanaagsan u rajeynayaa wareega koobaad waxaan isleeyahay qolkiiba 45 baan siiyay aad baad mahadsan tahay cabdi yusuf barnaamijkaasi runtii maaha barnaamij ku cusub Somaliland dad badan baa poultry iyo beedka iyo hawlihiisa ka shaqeeya anigoo eegaya markaa shuruudihii lagu xulayay ganacsiga boqolkiiba 35 waa tahay cabdiraxmaan ali xuseen marka koowaad waan hambalyeynayaa waanan u ducaynayaa ilaahay inuu u fududeeyo hawsha fikirkeeda ay keeneen oo runtii hawl aad u fiicana waxaan siinayaa marka koowaad 45 waa tahay aad baad u mahadsantihiin waxaad ka gudubteen hane iyo sakariya qaybtii u horeysay qiimeynta xubnaha guddiga 15 daqiiqo ayaan halkan 10 daqiiqo marka hore idin bilaabi doonaa inaad barnaamijkeena ku difaacdaan wixii su'aalo la idinka weydiiyo dhinaca ganacsiga ku saabsan xubnaha guddiga khubadda ganacsiga ayaa idin weydiin doona haddii ay u baahdaan hadhow iyagu 5 bay ku darsan doonaan ama su'aalaha ay ka bogan waayeen waxaan idin kala baxayaa adinkii xubnaha guddiga cabdiraxmaan ali xirse waan ku bilaabayaa in su'aasha horeysa aan siiyo mar labaad waan idin hambalyeynayaa waa mashruuc runtii fiican in productionka iyo wax soo saarka dalka maaragtay laga qayb qaato su'aashan idin weydiinaya waxa weeyaan waxaad tidhaahdeen hilibka iyo beedka ayaanu samaynaynaa digaaga tirada digaaga halkan ku qoranna waxaan walow ay track changes ku jiraan oo waxaan maleynayaa 1,000 meelahaas inaad sheegteen so 1,000 neefoo digaagii beed intee leeg baa laga samayn karaa hilib intee leeg ayaa laga samayn karaa bismillaah aad baa u mahadsantahay horta annaga priority-ga nooguma jirin beedka laakiin waxaan doonaynaa inaanu hilibka muhiimaddeeda inaan hilibka kusoo darnayd kunka digaaga 3 bilood oo horeeya nooguma jirto balaanika inaanu soo saarno maxaa la yidhaahdaa beed ama wax soo saar maadaama digaaga ka soo iibsanayno ama aanu soo Ethiopia kale kunka mar ka soo qaadanayno iyagoo yar haddii iyagoo weyn la soo qaado markaa ama dhalmadii wadaba environmentkii inay la qabsan waayeen baa laga yaabaa marka iyagoo yaryar baan soo qaadaynaa input baan gelinaa 3 bilood ugu horeeya insha allahu tacaala intaa wixii ka dambeeyana waxaanu markay 3 weeks 3 months markay dhamaadaan wax soo saarkoodii beedka bilaabmaya waxaanu doonaynaa inaanu 3 stages soo gaarsiino maadaama kunkii aanan rabin in markii kunkii noo soo baxo ama beedkii aanan markiiba qalin digaagadii inaanu iyadii isku celino maxaa la yiraahdaa kunkoodii aanu ku fadhiisino maybe wax laga yaabaa 20% in la lose karayno laakiin 80 kale beedka ahaa uu u dhasho kuntii marka 3 bilood kadib kuntaasi kun kaamid 800 estimation 800 inay nooga soo baxda laga yaabo waxaan rabaa inaan fahmo business modelkiina ama qaabka waxa aad u shaqaysanaysaan waa sababtaan idin weydiinayo hilib iyo beed sax tusaale ahaan haddii 1,000 neefoo digaaga aad beed ay ku wada dhalaan waa 1,000 xabo oo kuna maalintii si maalin kastana ma dhalayaan yani sida caadiga haddii tusaale ahaan aad beedkaba ka soo qaado 1,000 midh oo digaagi 1,000 beed hadday maalintii ku dhalaan lacag intee lag baad ka samaynaysaa adiga maxaa kaa gelaya cuntadeeda caafimaadkeeda ilaalinteeda goobteeda maarkay waxaas oo dhan markaad sugayso maxaad u malaynaysaa inaad ka samayn karayso haddii aad hilib ka dhigaysana sax haddii kunkiiba maanta lagaa soo dalbado oo la wada qalo sax xagee digaagaad ka keenaysaa sax aan kugu yara noqdo marka inputka aanu gelino digaagii beedkaa noo soo horeynaya beedkii kunkii xabo hadday noo soo baxaan
waxaa laynaga siiyaa soddonka keeska keeska waxaa laynaga siiyaa $6 $6 baa laynaga siiyaa beedka oo keliya kunkii haddii maxaa la yidhahdaaye loo qaybiyo keeskii waxa weeyaan 26 kees marka lagu dhufto $6 waxa weeyaan isku dhufan marka adigu waxa laga yaabaa soddonkii imaka $6 soddonka midhe ee keeska $6 marka loo qaybiyo kunkii beedka ahaa waxa soo baxaya 33.3 adigu waxaanu iska saarnay deetana intii naga lumi karaysay waxaanu soo saaranay 26 kees 26kii baanu ku dhufanay 6 oo birthday waxa noo soo baxday $156 birthday maalintii $156 bishii waxay noqonaysaa marka lagu dhufto maalinta ku joog marka maxaa ka baxaya maalintii tusaale ahaan oo kale maalintii laga yaabo adiga kunkii digaagadood feedingkoodii kale in $20 adigu dee cuntadoodii miyaad hubtaa mise waa laga yaabaayo maye arabakida calal qiyaas arabakida iyo maxaa la yidhaha garowga una garanaa kunka midinta ku baxaysa inta ku baxaysa dee lagu quudin karayo dee digaaga kunka mid marka birthday markaanu ka jarno maxaa la yidhahdaa water biyihii oo kale aanu ka jarno maxaa la yidhahdaaye medicinkii caafimaadkii oo kale iyaga caafimaadkii ku baxayay $100 waxaa ka go-aya $56 iyadu gaar bay u go-aysaa marka $100 inuu birthday faa'iido noo noqota laga yaabo saddex su'aalood baan ku weydiinayaa ama idin weydiinayaa halkan waxaa kusoo qorteen capitalka guud ama investmentka guud ee loo baahan yahay inuu yahay 13,000 iyo 300 soo saama tartankanna lacagta lagu tartamaya intaa aad bay uga yartahay xaggee ka keenaysaan lacagta kale isbedelku wuxuu dhucun baan u malaynayaa shalay unbu dhahay maanta maana loo soo diray kadib anagu dib baan usoo bedelay balweysulkii dib baan usoo diray okay waay su-aasha labaad waxa weeye ganacsigan aad soo bandhigteen waa ganacsi runtii muhiima oo shaqaynaya laakiin isweydiintu waxay tahay competitionka ama tartanka suuqa ka jira aad buu adagay waayo shirkado ka waaweyn tanad wadaan oo lacago qayr caadiya haysta oo idinka capital badan oo idinka khibrad badan ayaa iyaguna suuqa ku jira oo labaduba ka ganacsada beedka iyo hilibkaba sidoo kale waxa ku furan suuqan mid dibadeed oo aad ogtihiin oo digaaga hilibkiisa waxa laga keenaa meelo aad u fog oo iyagoo ayaa laynoo keenaa sidee u waajahaysaan tartankaasi adag ee suuqa idinkaga furan ama ka jira horta koobaad aan ku horeeyay sidaan ku qayblayno competitorska wadanka dhexdiisa iyagu xabadii beeda waxa la siiyaa 2,500 anagu waxaan sameynaa low cost baan ka dhigaynaa intaan suuqa soo galayno si aan u qaadano customer badan sidoo kale kan dalka banaankiisa in laga keeno hilibka waxaan doonaynaa inaan wadanka kaba saarnaba oo wadanka gudihiisa lagu sameeyo hilibka way haddii aan su-aashayda saddexaad waxay ka farcamaysaa unta waxaad tidhaahdeen low cost baanu ku iibinaynaa ama low price baanu ku iibinaynaa qiimo jaban bal waxaa noo yaro sharaxdaan tartankan waxyaabaha u aasaaska waxa ka mid ah inuu ganacsigu ganacsi faa'iido samayn karaya uu yahay bal idinkoo aad u soo koobaya oo waqti koobanna aynu haysanno nagu qanciya inuu ganacsigani idinkoo duuduubaya oon xisaab badan gelaynin waxa beermantaad iibin kartaan kharash waxa idinka baxaya riskiga uu leeyahay haddii iibkaasi iman waayo khasaaraha sidee u manage garanaysaan bal nagu qanciya inuu yahay ganacsi faa'iido leh anigoo soo koobaya imaka Vermont bishii oo kale anagu salary ahaan shaqaalaha waxaan u qoondaynay $1,200 iibkaaga ka bilow intee doonaysaa inaad bishii iibiso waxaan doonayaa bishii inaan iibiyo 1,000 xabo 800 xabo
sideed boqoloo xabo imise ay ku noqoso waa beedkii baad ka hadlaysaa markaa haa way sideed boqoloo beed imisaad siinaysa marka case ahaan loo eego waa 26 case beerday waxaan siinayaa $150 $650 beerday marka bishii waxay noqonayaan $4680 way hilibkana intee doonaysaa inaad iibiso hilibku isagu maadaama balaanin aan qorshe 3 bilood kadib aan u wadno way isagu 4650 ka digaag beedka imisa adiga uu kugu jooga beedkaasi aniga wixii igu joogo waxa weeyaan imaka salarigii faa'iidadii salary gaadhin beedkaasi intuu kugu jooga kharash ahaan beedkan ii soo baxay miya ila digaagii waxbaad siisay kuwii dhalayay waad security ma xisaabisay xabada beed intii kugu taagantay hore waan igi sheegay $160 waan igi yidhi waxaan meesha ka saarnay medicine-kii ku baxayay iyo cuntadii ay qaadanayeen marka $650 iyada estimation ahaan baan ugu qoondaynay anigu 3 bilood ugu horeysa faa'iido ma doonayno maadaama bisha koowaad kharash intee lag badgalaysa adigu kharash waxaanu gelaynaa ku dhawaad $15,500 sida marka miyaanad khasaarin maadaama aad dakhligaaguna yahay 4650 maadaama 15,000 gelayso kharashka meer quality ban anigu kharashkan gelayaa waa $2,610 weeye marka imisaad faa'iidaysa waxaan faa'iidayaa $2,360 way aad baad mahadsantihiin waan salaamayaa mar labaad waan soo dhaweynaynaa waxaan rabaa su'aalaan qabi waa laydin weydiiyey laakiin waxaan rabaa in la weydiiyo digaagu cuntooyin gaar ah cunaan sax horta aqoon intee leeg baad u leedihiin hawsha la xiriira digaag iyo digaag korinta iyo shaqadaasi waa midda koobaad midda labaadna raashinka iyo cuntadaad la siiyo xageed isleedii waad ka helaysaan ama waad ka keeni kartaan waa khibradii aqoonba maxaad u leedihiin xageed ka keenaysaan raashinka horta digaagu sidaynu naqaanaba cuntada ay cunaan waa tu dalkeenu ka baxda hadday noqoto garow iyo hadday noqoto arbaqiba dalkeeniba ayay ka baxdaa marka waxaanu doonaynaa inaanu soo iibsano maxaa la yidhahdaa koritaankoodii aanu iska kolley dee markii la yaryaraa xaafad walba dee digaag bay lahayd oo digaagunba salar c maxaa la yidhahdaa garow c waa dee la korinayay marka horta aqoontii yaraantii aanu ku haysanay ayuumaanu maantana doonaynaa inaanu ka samayno kos iyo benefit aan ka samayno marka aragti aanu leenoo dee maalinkaa maanta dhirteenniyoo kale dee aanu u leenay ayaanu doonaynaa inaanu ku siino weli ma jirtaa meel digaag lagu xanaaneeyo intood tagteen aad wax ka soo faa'iidaysateen ood nala wadaagi karto way jirtaa maxaad ka soo faa'iidaysatay ugu muhiimsan imaka sida xeryaha maxaa la yidhahdaa home guryahay leeyihiin oo kale sida loo kala saaray oo kale maxaa la yidhahdaa sida care medicine-kada loo ilaalinayo oo kale waa mahadsan tahay هنادي سكريات بعد ما سنتين وأنا كم هذا قصات برنامج كيس نود دفاع ده وأنا تكون بقادين يا بلوح نيجي دونا استفاعات سماشين يا كان حسيت هذا كان فرد جود ده هي قاب كي يدفع ده برنامج كينا أساس ده أولاد عن يهدي السلوكان وربعيه هني هراي كذا بمنين لا بضا بلين دي بقول نحنا جود جا إسماعيل هذا المعاد من كبلا ويا إسماعيل مركي أكتي محا سكبد لين يتشدا ده هراي أن أرتوح يابان ku qiimeynayna waxa ka mid ah mashruucan si fudud ama si cad ma loo fulin karaayo ma kaaga muuqata qofkan tartamaya ma u caddahay tallaabooyin ku qaaday riskiga imaan kara ma og yahay ma ka gudbi karaa waxaas oo dhan baa horta ku jirta karaatadan ku qiimeynayno anoo taa ka duulaya intii aan marka hore siyuma ku daynaya waxba kuma daray wax ma ka dhimay waa tahay cabdi yuusuf way waxaan la qabaa ismaaciil qiimeyntaa hore ayaana ku adkaystay cabdiraxmaan anoo kulleyba ku dhiirigelinaya inay sii wadaan hawsha isla markaana ay u dhigaan qaab fuli karta oo tusaale ahaan oo kale beedka oo kale ay xoogga saaraan halka hilib ay maaragtay ka fikirayaan markiiba waayo waa mashruuc aad u weyn in hilib laga fikiraa digaag 45 baan markii hore siiyey 5 baan ka jaray waa tahay aad baan idin soo dhaweynaya waxaan jeclahay idin sii dhaweysaan waxaan idin rajaynayaa gurbada dhammaan guulaysan doontaan daawadyaal intaasi waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii xisaab badnaa ee tartanka halabuurka ganacsiga ee jaamacadaha dalka roobadan karim waa sanadka 2022 waxaa barnaamijkan maalgelinaya isla markaasina hirgeliyay bangiga caalamiga premier bank waxaa la waray professor r
waxaa qayb ka ah xubnaha guddiga oo khubro ka socota ganacsiyada kala duwan waa dhammaanba howlwadnada barnaamijka ka qayb qaatay oo idinku dhaafina rabadaan kariim kulla caam wa antum bilkhayr walaal safarkaygii turkiga saacadaa ka hadhay lacagta intaa leegna safar lama geli karayo waxaan doonayaa lacagta inaan kuu sii dhiibo si aad iiga soo daba dirto waa dahooy taleefonka carruurta kula haystee hayga qaban waaye walaalay sodagii ilbaxa ahaa si kaa noqotay maanta had maa laga tegay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag lagaa soo daba dira iyo taleefon aad ka soo hadasho kugu howlay soo tan Premier Bank noqotay howl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolaha ku daba sidaysaa oo aan koon baaba ku leeyahay lacagtaan dhigtay ma iyaga iga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idinka caawiyaa Mastercard baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel